شاء الله تعالى وصوروا بيننا وحنقول لنا مرة إن شاء الله حلو شيء واحد كل تحديات فرام با تماما واحد غير مرة إن كسوق بكبيرنا شوف نقول واحد في 10 دقيقة ومرة تحديات كان جودة للشيء إن شاء الله تعالى مثل كل ما في الله سبحانه وتعالى وكرسيه مرة إن تماما تفضل حسين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلوش هذه نوربا أنت كعلي أنت فديبا نوربا وحي الأحي يو سيد أهل وحي الله وشيء مركا حلول بين أوبد ما يدفع استاذ وحي فهدين وحويا هذا دتك وحقودر ومكان عن وفلسلي هاي هلا قبضه وحويا وادتك وعي جيل إن لوعي جيليو وضياش يوينك إيو دتك واول لوعي جيليو سيدي لشيغين إن Somali مثلا حروت لبرو لوفرو وآدي وحو نفسهم ويان وإن كرو تاريخ لبرو دتك لبرو إن قاونانتو أيسن أصل هين وفق مركي أوبرشو وحو بهاي هاي وحلقو يوبهاي وحو بنتلو بهاي wuxuu u baahan yahay ma ahan magaranaysa baahidii masalan uu qabay in dadkii ay dib ugu noqdaan qaawnaan masalan wax weeyaan waa wax taariikhda ka bedelan oo ka foorxun marka waa in loo sheego oo ilaahayna uu ku manaysto dadka leeyahay ya bani aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaris sawatikum warishan wal libaasu taqwa dalika khayr yani wax weeyaan dadkana loo sheego in darqabida iyo is-asturidu ay sharafna tahay ayna soo jireen tahay oo aysan qawnaantu sidii uu sheegay Sheekh Rahman waxa weeyaan Faransiiska iyo dadkaan oo dhan way asturaan jireen laakiin waa dhowba balaayadan loo ololeeyay marka waxaan waadan baa la soo saaray marka waa in dadka lagu wacyigeliyo in asalkii iyo darqabidii iyo sharaftii loo noqdo waxaad arkaysaa nin iyo naagtii wada socda ninkiina dhar buu qabaa wuxuu qabaa suud buu qabaa ilaa jilbaha jooga ilaa lugaha qarinhayo meel jirkiisa ka muuqan iyada naagtiina waa qaawan tahay oo waxa weeyaan waxay qabtaa goono yaro iyo nigis bay qabtaa hadday doonto marka waxa weeyaan waa wax loogu talagalay oo yani kasoo horjeed diin kastaba ha ahaatee kasoo horjeeda ama masiix ha ahaato ama muslim ha ahaato ama ha ahaato yahuudi ha ahaato wax walbaba wax loogu talagalay taxallul masalan taxallul waxa weeyaan masalan laga diimihii laga dhex baxo oo laga saaro dadka loogu talagalay maxaa yeelay haweenkaa la yidhi jirkooda oo dhan waa cawro ma cadda alwajhi walkafayn marka ay tukanayaan ragana waxaa leeyihi maa bayna surra warukba yani jilbaha iyo masalan xudunta intii u dhaxaysa cawra marka haweenkii la yidhi jirkooda oo dhan ayaa cawra ayaa waxay sameeyeen jirkii intii ninka laga doonayay oo maa bayna surra warukba wax ka yar bay qaateen ninkiina dharkiisiibuu qabaa marka waxa weeyaan waa in loo sheego oo dadka lagu wacyigeliyo in aysan ahayn masalan qaawnaanshu aysan asal ahayn waxa kale oo lagu wacyigelinayaa dadka oo in lagu wacyigeliyo ay tahay siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii iyo salafu saalix marka loo akrinayo si cumriya in loogu akriyo aysan saddex noqon masalan bal loo undul maro la yidhaha nebigu waa soo hijrooday xaggaasuu tegey meesha inuu saddex aysan noqon ee si cumriya inta loogu siiradu waa wax sahlan oo ay baran karaan waana qofku haddii uu siirada akrisanayo wuxuu la nool yahay asxaabtii iyo rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa buu la nool yahay marka waa in siirada si wanaagsan loogu dadaalo oo loo baro iskuulaadka masalanba soomaaligana waa in la furo jazakum allah ممكن إن شاء الله تعالى نقول ليش عن طيب وموضوع التي تكبدها حقيقة هاي في خارجية هاي في داخلية هاي في ما تكبدها تحديات في لو تناول إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما كبر هنا وقت فاضي ويسأل الناس على مشاكل بيننا إنه تصور صريح يعني كذا على كل يوم بعد الجماعة فمسك في الشريعة. العلماء هذا أيش إني أنا الله شيء وأهمي يوميات كينا كنت على القيد عمل كنوع وقليل نوع هي عمل جماعي المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه قف كذبي وتوجه لكن مشكلة كستوى تبكي الجماعة لا سمعية يد الله مع الجماعة سوى الجماعة لا سمعية يي لبيا marka mashaakilka la sheegay waa mashaakil jamaaci oo si
guud bay noo haystaan waxaynu u baahannahay si guud inaynu u xalino marka inay jaaliyaddu istandiimiso is-iruuriso oy mashaakilkeeda si wadajira ay u xaliso ama wax mid tacliimeed ha noqoto ama mid thaqaafo iyo tasaadul thaqaafaad ha noqoto waxyaabahan hadda inagana haystaan qof waliba gaarkiisa inuu xaliyo way ku adag tahay marka waxay u baahan tahay jaaliyad muslima si guud ama jaaliyadan afka ku hadlaysa si gaar ah in ay sameeyaan sidii ay uga bixi lahaayeen acmaashan gaargaarka u dhibaysa oo matalan haddaan soo qaadano haddii la yidhaahda luqadii baa dhibnaga haysta qof kelihii intuu carruurtiisa iskuol u furo luqo kuma xallin karo laakiin inagoo majmuuca ah waan ku xallin karnaa oo sida walaalkii uu sheegay si uu tafaahumka waalidka ilmaha udhaxeeya english lagama bixi karo in ilmaha yar soomaali la baraa ka dhow in qofka weyn english la baro dad kalena ilmuhu way ugu jirtaa in soomaali si fiican u barto diinku ku baran luqadu waxay wadataa macnihiibuu ku fahmayaa thaqaafadii islaamiga ahayd buu ku fahmayaa oo ilmuhu khalqiyadiisii buu usoo celinayaa marka qof keliyana ma samayn karo marka mashaakilka la sheego waxaan u baahanay jaaliyaddu inay ka shirto oy mid uga shirto oy mid u xaliso si guud ay u xaliso loona sameeyo ahdaaf waxaa kaleeto wanaagsan qof walba inuu ku qanco inuusan keligii systemka ka dabaalan karin qof kastoo gaarkaaga adigoo gurigii hebel ah iyo system markaa isu soo baxsataa systemku ka reynaya taas waa xaqiiqo ogaan adiga oo keligaa iyo systemki markaas isma gabadhin kartaa waa dawlad mutatawira ah oo imkaaniyaadkeedii haysata way ka horbadan tahay marka ka majmuuca waxaan dhihi lahaa oo aynu qaadno mashaakilkeena jaaliyadu ka jaaliya ama majmuuca ahaan inaan mashaakilkeena ku xallin sida bulshooyinka inala joogaa ay u xalliyeen yani nina gaarkiisa waxaan u xallinin meesha uu qofku keligii ku dadaali lahaa wuxuu ku dadaalay muasasadii u dhaxaysa waxaa arrin aada ii cajab gelisay jaaliyad muslimaan oo yar baa waxay ka jiri jirtay South Africa nin marka culimaha tagay baa iga sheekeeyay jaaliyadaasu qolyahan yahuudda u badnay laakiin muslimiin kale way ku jiri jireen jaaliyadaas iyadoo jaaliyad ah oo muslimada bay waxay go-aan ku gaadhay inay qof oo kale iska soo qaadaan hal qof oo kale hantidoodii bay xataa isku dareen meelaha qaarkood waxay sameeyeen hanti ka dhaxaysa si ay u dareemaan qofku inuu yahay ka kale oo kale nimankaasi horumarkii ay gaadheen diin iyo adduunyada hadda magaaladan aan joogno manhajka lagu dhiga madaarisa hindida ku dhigato soofka laga keeno jaaliyad yar bay ahayd wuxuu yiri in baa taxi ugu qaaday in baa bawl ugu qaadiyo kamida markaa dhulku isagu markaasuu yiri dhul sotarka ku yaala magaalada madaxa soo afrika dhulka annaga waxaan u qaatay buu yiri isaga familkiisa inuu ka wado markii dambe waxaan ka wadaa buu yiri haddaan nahay jaaliyadda annaga way maalka annaga yani nisbadii intaas baa ku darnaa jaaliyadda hantideeda gurigeyga waxaan ka jeclahay guriga jaaliyadda way keligay gurigeyga xubin u qabanka sida haddaynaan u dhaqmin oo aynaan u dhaqmin majmuucada meesha isla noolo inay nolosha iyada ka dhaxayso oo wixii dhiboo ku yimaaday iyaga uu yahay ee uusan ahayn ku meel kale ka yimid sida haddaynaan u dhaqmin dadkan wuu ina qaadanaya waxay marka u baahanahay mashaakilkeena oo aynu jirinay oo dhan in aynu qof waliba daciifu binafsihi qawiyun biikhwaanihi camal wada jira inaan ku xalino baraka allah جزاه الله خير شيخ محمد طيب waxaad runtii aad mutaarinteena kusoo noqotay jaaliyadda laftigeedu inay waajahdo taxadiga waan horena usoo aragnay muxaadaradii hore shayga taxadiyaadka ah yani intooda badan aanay jirin wax mustaxiil ah ama soo sheekh maxamed ma tilmaamaya ama dibteeda hortaagan inaan ahayn mustaxiil waxa laga qaban kara ay tahay muqawmaadka ugu waaweyn ee markaa lagu dhaqaaqi karo wax lagaga qaban karaana ay tahay inay si isku mid ah jaaliyaddu ay u waajahdo waayo waa mushkilo mushtaraka oo dhammaan jaaliyadda oo dhan ay way wadaagto waxaan kusoo gabagabaynaynaa sheekh cabdiraxmaan insha allahu tacaala falyatafadal mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا لبيه انا لما بدي اقول بين الناس انت السوري هو الى مقطع هو عارفين اسمه بيجينيو
aniga laban ku biirinaya waxaan ku biirinay waxaan ka hadlaynay waa dhalinyartiinta badan dhalinyartuna hadda sidaa lasoo wada maray xidig ay ku dayato waxay raadsinaysaa cid ay isku identifigarayso iyo ciddaasaan anigu ahay ay tirahda inta badan raadinaya muslimiin baan qodan kaagi yaraado kula tukanayo qur-aanka xafidayo haddana shaksiyad buu ku xidhan yaho oo cudur ka jeclaaday adduunka marka imika inta badan cidda lagu xidhan yahay waa ciyaaraha nimanka kubadaha ciyaari iyo waxba lagu xidhan yahay inta badan waxay ku habboon tahay waa hawl markaa jaariyadda uu sheekh sheegay yimaasata korbeynta inoo surooda haddaan sameyno dhalinyarteeda dhexdooda haddaan ka sameyno xidig dhalinyarta ay eegtaan arrinkaasi aada buu fiican meelaha qaar waa lagu guulaystay oo waa la karay kubaddii uula cayaaraa jaamacaddii uu ku fiican yahay diintiina uu ku fiican yahay marka xidig haddaan ka dhex sameyn lahay dhalinyarta oo fiicanay taargetka intoo la saaro hadalka intoo laga dhiso xidigan meel kale ay u doon lahay dhexdeeda inaan ka sameyno arrinkaasi aada fiican waayo ilmihii lagama karayo ilmihii xidig la-aan ma joogsanayo adiga waad iska weyto qaliyo waxbaad kala lahay cimaamadiyo waa tusbaxaad isku shaqa ma tirin marka adiga waxa adiga wuxuu kaa rabaa ma jiro ilmihii caqligan inta leeda kula hadlaysana weli ma soo gaarsiisna dantan aad kala hadlaysana ma soo gaarsiisna laakiin waxa si fudud ugu qaadan kara waxaa jiro xidig cid anigu ciddaasaan isku dayanahay kaa qofkaasaan ka helaa hadda waxay jirtaa wadaadada shabaabkii adduunka ku jira saxwada يعني Somali nin ciyaartooy oo qarniyo guul hom dhigto oo ay saxiix photograph Somali photograph hadda waxay jiraan culamada shabaabka adduunka waxay ka dhigayso qaar waqtigan cadar photograph buuga loo siisto marka waxoogaa xidig oo kale loo marka inaga xuluusheena inaan ku darsano haddaan xidig sameyn karo shabaabkii jaariyaddu waxyaabaha culayska taasi loo baahan yahay haddaan xidig sameyn karo sheekh Dayib iyo adag iyo wuxuu qodob weyn weeyay afkii laakiin kuwa yar xaqna taray waxa cawdan akhriyo xaqna fahmi laakiin niman islaamaya badala marka xidig waa u baahanay taas waa xagga marka laga hadlo suluubi dhaqanka xagga marka laga hadlo afkaarta iyo cilmiga waxaan u baahanahay kitaab reporter la borotamina sabab baahnaa qoro hadda reporter sabab suuciya kalimaas kuyuuga bahalkaasi wax ku qor ma jiro waa sixir ya saaxib waxba kuma qoran haddana kuyuuga loo galayo waa gabadhii buugaantaa qortay ingiriiska loogu lacag doonada boqorada lacag doonta maxay samaysay buuggeedii waxaa laga dhigay basta salo waxaan u baahannahay waa tacaddi jaariyadaaso islaamkii haddaan luqadii ubadka ku qori karray isagoo macaan oo buuggii koowaad buuggii labaad buuggii saddexaad sanadkiiba buug soo haddaan kari karno waa arrin fiican buugaan waa taxaddi wuu culus yahay waa laga bixi karaa waxay u baahan tahay jaariyadda aqoonyahanka culamadii aqoonyahankii intoo la isku tago islaamkii buuggii koowaad buuggii labaad buuggii saddexaad buuggii afraad haddaan qori karno oo sanadka la sugo oo dee tvyadan haysano universal baa la daawadaa ka kala waxan baa la daawadaa la isbiirsado waa la kari karaa aniga markaa waxaan u baahannahay xidig xagga suluuga iyo dhaqanka marka laga hadlo islaamkii ka muuqdo waxaan u baahannahay jaanib alfikri walcilmi yani qoraan islaamkii oo qoran oo lahjadii luqadii ubadka lagu qoray ayaan hadda u baahannahay kutubta waaweyn waa kutub loogu talagalay nukhba dad wax akriya oo caqligoogu gasaya loogu talagalay laakiin kutubtii hoose sama jiraan wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم وسوي بجد هذا الشيء عند كل إن شاء الله كلية واحد تستوى أخوات حاجة ولا كذي واحد أخذ في هاي عوائد وحاجة تكون شيء من مدة الإسلام كا واحد سوي كلية واحد أفضل مكان هذا رجع ما أنت أدوك الجودة هذين دوليان هنا يسوي عليان مصدر كاو الإسلام كلها نحاول بيها نحاول بيها لا